iyadoo lagu guda jiro xilliga badxiranka oo inta badan astaan u ahayd hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka dhaqaale ee dekedda Muqdisho ayaa sanadkan waxa la dareemayaa isbedelo arrinkaasi ka duwan waxaana jira haatan kobac dhaqaale oo ay sameysay dekedda arrimahani kobaca dhaqaale ee dekedda xilligan badxiranka ayaa ka dambeysay kadib markii maamulka dekedda iyo ganacsatada ay sameeyeen qorshayaal iyo nidaam sahlaya inuusan hakad gelin howlaha shaqada dekedda taasi oo kamid ah in maraakiibta la saaro container si looga badbaado in badeecada ay qoydo Mareey ku-xigeenka dekedda magaalada Muqdisho Axmed Cabdi Kaariye oo warbaahinta kula hadlay gudaha dekedda Muqdisho ayaa sharaxay sida ay ugu suura gashay kobaca dhaqaale xilligan badxiranka ah. Kororka dhaqaalaha iyo shaqooyinka hadda socda arkaysaan runtii aad iyo aad ayuu koror u jiraa shaqooyinkuna ay u horumarsan yihiin oo hadda ay u sameynayaan horumar. Haddii aan horay u sii faahin ka siino dekedda kama jiri jirin 20 sano la soo dhaafay hadii ay xilliyada xirreed iyo markay furreedba systemkan oo container oo leen container kama jirin muddo kooban uu ka hirgalay marka xilligan oo kale oo annaga ay noo tahay manzuunka ama badxiranka noo tahay waxaan dhihi karnaa bilihii hadda la soo dhaafay ama bilaha hadda lagu jiro badxiranka saameyn kuma yeelan dekedda Muqdisho. dhaqdhaqaaqa ka socda marsada Xamar ayaa fursado shaqo abuuris ah u noqotay ku dhawaad 1,000 qofood oo shaqaalaha dekedda iyo dad kale oo xoogsada sida uu mar kale ku waramay Mareey ku-xigeenka dekedda. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa shaqo ka helay maahan ganacsatadii ama kambaniyadii shaqadan la yimid kama faa'iidin oo kaliya waxa ka faa'iiday ummadda Soomaaliyeed waxa looga faa'iideystay dhinacyo badan oo kala duwan waxa sida arkaysaan dad ku dhow 1,000 qof ka howlgalay ayaa ka howlgalay systemkan container marka dad badan baa ka faa'iideystay waa laga shaqeeyaa qalab gaadiid dad nooc kala duwan leh kuwa oo professional ah oo shaqooyin gaar ah yaqaana iyo kuwa xoogsatada marka la gaaro xilliga badxiranka ayaa waxa ay saameyn ku yeelan jirtay dhaqdhaqaaqa ganacsi balse dhawaan ayay ahayd markii maamulka dekedda uu soo bandhigay nidaam cusub oo lagu soo kordhiyay si looga gaashaanto hakad ku yimaada shaqada marsada Xamar iyo dhaqaalaha ka soo xarooda. Bashir Ahmed, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta dekedda magaalada Muqdisho.